ودagaal la iskugu awood sheeganayo xaddiga hubka uu daraf walba haysto masaakiinta reer Ukraine waagi curtaba homaska iyo qiiqa gantaalada Ruushku naafaynayaan hubka wax kumaadana waxa uu qoonsanayaa in xilligiisii la gaariyo oo laga rogo NATO la taagdaran xagtimaha soo gaaray sumcadeeda ee dagaalka Ukraine sababta uu yahay bixin kar ilaana magta maatada dagaalka ku nafweyday ay dumada u rogotay waxay maalintii shalay toole tijaabisay hub noociisu saaxadda ku cusub yahay Ruushkuna waxa uu kaga filciliyay mid kale oo maqaadiira xambaari karana tobanaan madax oo nukliyeer ah wajiga cusub ee dagaalka Ukraine iyo kaliya adayga hubka nukliyeerka daawadayaal halkani waa Madowless TV haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir lana wadaaga asxaabtaada dhawaan ayay ahayd markii gaashaanbuurta NATO ku dhawaaqday inay dhoolatus military ka samayn doonto agagaarka soodinta Ukraine taasoo dacarta ku kicisay Putin oo dhiig joojin ku mudayay furimaha dagaalka ay kaga jiraan ciidankiisu waxaanu soo bandhigay tijaabooyinka nukliyeerka iyo hub kala duwan ma yahayn manayna filan hormuudka adduunku in dagaalka Ukraine uu istaahilo hubka intaas leeg balse Putin uu kaga dhabeeyay Mareykanka oo jawaab uga dhigay falka argagaxa leh ay sameysay dawladda Moscow waxa uu Ukraine u daabulay hanaanka gantaalada horumarsan ee Nasamis Ruushka oo maalmihii u dambeeyay gantaal uu tijaabinayay uu ku dhuftay meel u dhow xuduudka Mareykanka ayaa loo aaneynaya inuu kalifay isbedelkan cabsida badan ee ku yimid dagaalka Ukraine Putin ayaa warbaahinta u sheegay in gantaaladiisa cusub uu bacda kaga jari doono jasiiradda Kamchatka ee Ruushka isagoo kaga filcilinaya awoodda NATO waxa wadaminayso xuduudka Ukraine afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa u arkay in qorshaha NATO uu hanjabaad ku yahay ammaanka qowmiga ee Ruushka sababtaasna ay u soo bandhigeen gantaalada balaastiga ee hubka nukliyeerka lagu rakibo gantaalka muuqaalkiisa aan ka aragnay shaashadaha ayaa magaciisa la dhahaa RS-24 waana gantaal balaastiga oo qaaradaha u kala goosha hubkan haddii lagu weeraro magaalada caasimadda waa Ukraine ee Kiev waxa uu waqti kooban kaga baabiin karaa khariirada adduunka Ruushka ayaa sidoo kale soo bandhigay gujiska qaada gantaalada nukliyeerka oo lagu magacaabo Tola K114 gujiskan ayaa mid noociisu dunida ku cusub yahay xawaaraha saacadii goynayana waa mid aad u sareeya Ruushka ayaa doonaya inay ka dhigaan gujiskan saldhig lagu kaydiyo gantaalada oo guurguura diyaaradihii bambooyinka tuuri jiray ee uu ku caanamaalay midowga Sofiyeetiga laguna farsameeyay xafiiska Tobolov ayaa Putin dib u hagaajinaya casriyeyn baaxad leh ku sameeyay diyaaradan oo nooceedu yahay U-95 lehna 4 mishiino awood badan ayaa xambaari karta bambooyinka nukliyeerka iyo qumbulada Ivan N602 dhoolatuska nukliyeerka ee labada awoodeed ee ugu tunka weyn dunida aan ku noolnahay waxay marxalad kala gelinayaan dagaalkii waanwaantiisa lagu jiray ee Ukraine iyo sicir bararka dunidu ay ka qaylinayso Moscow ayaa u aragtay in hanaankii dunida ee geosiyaasigu gabi ahaanba isbedelay Ruushkuna uu mudan yahay inuu doorkiisa ka qaato godoonka socda Mareykanka iyo reer galbeedkuna noqdeen ugaar sahlan oo keenta ku dayacan khubarada dagaalka ka faaloota ayaa NATO guudka u saaray khasaaraha ka dhasha haddii la adeegsado hubkan halista badan maadaama ay iyagu bilaabeen carinta Ruushka oo u baahnaa sabab xukuumadda Moscow ayaa ku eedeysay in ciidanka Zelensky ay u adeegsadeen hubka wax kumaada xoogagooda ku sugan aagaga ay qasabka kaga haystaan Kiev waxaana carabka ku adkaysay in jawaab celin ku habboon ay heli doonaan Ukrainiyiintu reer galbeedka oo ku muusanaabaya in bambooyinka wax kumaada aysan adeegsanin Kiev ayaa u xaqlinaya in Ruushku wada banaysanaya sidii uu hubkiisan halista badan u soo gelin lahaa dagaalka haddii aynu eegno sida ay ugu kala tuwan yihiin Mareykanka iyo Ruushku awoodda nukliyeerka waxa xogihii u dambeeyay ay sheegayaan in Ruushku kaga gacan sareeyo Mareykanka dhanka hubka wax kumaada gantaalada xambaarsan hubka nukliyeerka waxay muddo 30 daqiiqo ku tagi karaan cariga Mareykanka haddii gujisyada badda hoosteeda ku jira laga ridana 15 daqiiqo ayay ku qaadanaysaa xaddiga hubka nukliyeerka Moscow haysato waxa lagu qiyaasaa 6250 madax Mareykankuna waa 5550 madaxyada wax kumaada balse Mareykanku waxa uu kaga gacan sareyn karaa Ruushka xulafada NATO ay ku bahoobeen dawladaha ugu awoodda badan dunida dagaalka uu Ruushku kula jiro Ukraine iyo reer galbeedka haddii uu dabagarasho ka sameeyay waxay qiimo beel ku noqonaysaa suuqa hubka Ruushka ee adduunka caqiidada ay aaminsan yihiin lafii Sofiyeetiga hore waa inaysan duruufaha isu dhiibin maadaama aanu dhaqaalahoodu sida Yurub dhulka gelin sirdoonka Mareykanka ayaa goobo galiyay eray bixinta inuu Ruushku hubka nukliyeerka isticmaalkiisa uu ku mudan doono hagaasi ayaan darro dawladeed oo aan loo maaran heli karin araxjabna ay ku tahay dawladda ay boodhka ka jafeen sodomeeyo sano kahor haddaba su'aasha meesha taalla ayaa haddiiba aanay ku rajo weyneyn inay adeegsadaan hubkan sidee ayay u jiidhi doonaan xoogaga Ukraine iska cabinta wargeyska Foreign Policy ayaa jawaab quman u helay weydiintan waxaanu iftiimiyeen dawladda Ruushka ay ciidamadeeda ka soo daadgureysay wadamada Japan iyo Suuriya
si ay u geliso dagaalka Ukraine. sidoo kale waxaa furinta dagaalka Ruushka ku soo biiray xoogaga ka cadhaysan reer galbeedka Afghanistan. ciidamada Afghanistaniyiin ayaa qoriga dhuuntiisa xabadda ka ridaya. NATO oo u fidisay 7 dagaal iyo saanad military xoogaga Afghanistan xilligii Mareykanku haystay. waxay ka cabsi qabaan inay dadajiyaan xawaaraha uu dagaalku ku socdo. Putin ayaa maalin sii horeysay ka sheegay warbaahinta in waxa socdo oo dhan uu yahay horaadka dagaalka oo aan wali la iskaadhin. shirar goosgoos oo reer galbeedku isku arkayaan ayaa lagaga arinsanayaa sidii irbad suuxisaa loogu mudi lahaa xaqiiqada kulul ay u joogi doonaan bilaha soo socda. Iiraan ayaa dagaalka kula soo biirtay Ruushka iyadoo diyaaradaha iskood isku wada gaarsiisay jasiiradda Crimea, tababaro iyo qalab cusubna gaarsiisay ciidamada ku sugan jasiirad-lamoodkan muhiimka. maanta waxay warbaahintu sheegaysaa in ciidamada Ukraine ay u ruqaansadeen xagga iyo aagga Mykolaiv, waxaanay ku hanwen yihiin inay soo xiro gashaan magaalada istiraatiijiga ee Kherson. dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa faraha ka sii baxaya maalinba maalinta ka sii dambaysa, waxaanu yeeshay wajigii ugu halista badnaa. NATO ciidamadeeda u soo raraysa xuduudka Ukraine, Ruushka oo dafirsan inuu ka hor kufo reer Yurub, iyo Ukraine oo iska caabinteedu kulushahay. haddaba daawada meeslada nuclear-ka ayaa loo adeegsan karaa dagaalkan haddii xaaladdu faraha ka baxdo. faalladaada xagga hoose nagu reeb, naguna soo bir haddii aad nagu cusub tahay.